Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel kastoo aad naga dhageysanaysaan kusoo dhawaada barnaamij cusub oo aanu kasii daynayno warbaahinta Hon Digital TV oo ah warbaahin cusub. Maantana barnaamijka ugu horeeyay aanu kasii daynayno magacayguna waa Xasan Jaamac. Barnaamijka maanta waa wacyigelin gaaban ama kooban oo ku saabsan tirakoob ka dhacaya dalkan Australia bishan 13keeda oo maalinta Talaadada nagu soo aadan. Haddaba tirakoobkan waxa uu yahay tirakoobkan dalka Australia waxaa laga sameeyaa 5 sanaba mar, waana mid loogu talagalay in dawladdu ay ku ogaato macluumaad guud si markaasi adeegyada kala duwan ay dalka u gaarsiiso hadba meesha baahiyaha ugu badan ay ka jiraan. Tirakoobkan ayaa su'aalo badan oo gaaraya 66 dadka lagu weydiiyaa. Su'aalaha ugu waaweyn ama qaybaha ay u kala qaybsan yihiin waxa ay kala yihiin marka hore qofku meesha uu degan yahay ama addresskiisa ama cinwaanka iyo guriga nooca uu degan yahay. Waxaa kaloo la weydiiyaa qofka waxa personal details la yiraahdo ama macluumaad qofka shakhsigiisa ku saabsan sida magaca, da'da, waqtiga uu dhashay, inuu xaas yahay iyo inuusan xaas ahayn, xiriirka ay leeyihiin dadka gurigaasi wada degan. Sidoo kale waxaa ka mid ah qofka dalka uu ka soo jeeda ama dalkii uu ku dhashay ama asalkiisa ama midabkiisa xataa iyo luqadda uu ku hadlo ayaa ka mid ah su'aalaha waaweyn ee la isweydiiyo. Sidoo kale qofka waxaa la ogaadaa ama la weydiiyaa heerkiisa waxbarasho iyo waliba caafimaadkiisa, inuu xanuun uu la nool yahay qabo sida xanuunka sokorta oo kale iyo xanuuno la mid ah. Sidoo kale waxbarashada heerka uu ka gaaray, inuu dugsi sare ku dhameeyay, inuu markaasi waxbarasho jaamacadeed galay iyo in kale ayaa lagu ogaadaa. Sidoo kale waxaa lagu ogaadaa su'aalaha ugu muhiimsan ka mid ah shaqada iyo dakhliga qofka soo gala, shaqadiisa inta lacag uu ku leeyahay, shaqada nooca uu qabto, cidda uu shaqeeyo waxa ay yihiin. Shaqada xataa waxaa la weydiiyaa sida uu shaqada ku tago, ma tareen buu qofku ku aadaa, gaari miyuu ku tagaa, baaskiil miyuu ku tagaa, ma u lugeeyaa. Waxaasoo dhan waa macluumaad runtii muhiim ah oo dadka la weydiiyo. Tirakoobkan marka wuxuu muhiim aad ugu yahay in dawladdu ogaato meelaha baahiyaha gaarka ay ka jiraan, sida matalan xaafadaha qaarkood haddii la ogaado in shaqo la'aan ba'ani ay ka jirto, si markaas arrintaas wax looga qabto. Sidoo kale haddii xaafadaha qaarkood dhanka caafimaadka ay ku badan yihiin xanuunada sokorta oo kale, in ay la baaro sababta ay tahay iyo sidii wax looga qaban lahaa ama adeegyo gaara loogu fidin lahaa. Haddaba inaga Soomaali ahaan sidee arrintani saameyn ugu yeelan kartaa? Dabcan shacbi weynahaasan ka mid nahay, laakiin si gaar ah waxaa laga yaabaa baahiyo gaara in Soomaalidu qabto. Haddaba haddii aad matalan xaafada degan tahay, siyaasiyiinta ama dawladda aad u tagtid midda gobolka oo tiraahdo haddaanu Soomaali nahay dhibaatadan aan haysata, tirada iyaduna waa intaan, oo tiro markaas adigu aad isleedahay Soomaalida degan way tahay aad ula tagtid, laga dhageysan maayo sababtoo ah waxay ku tiirsan yihiin oo tirada ka fiiriyaan waa hay'adaasi tirakoobka qaadaysa ee ABS la yiraahdo. Waa la soo bixinaa website-kii baa la gelayaa, waxaa la leeyahay Soomaalida xaafadaas u degan sida ay qorayso ABS waa intaas, adiga laguma dhageysanayo. Matalan Soomaalida deganayd ama Soomaalida degan dalkan Australia guud ahaan census-kii u dambeeyay ama tirakoobkii u dambeeyay waxaa lagu qiyaasay 14,100 iyo xoogaa. Soomaali badan baa aaminsan tiradu inay aad ugu badan tahay. Matalan Melbourne oo Soomaalida kala bar Australia degan oo ay degan tahay, waxaa tirakoobkii u dambeeyay lagu sheegay inay 7,000 degan tahay. Dad baa aaminsan inay 10,000 ka badan yihiin. Haddaba ma dhici kartaa Soomaali badan inaysan foomamka buuxin, sidaas awgeedna tiradu ay aad uga yaraato tirada saxda ee Soomaalidu tahay. Waxaa dhici karta dadka qaarkood inay u sababtay luqad la'aan ama aysan ogeyn ama la soconba ama aysan ogeyn muhiimadda uu leeyahay tirakoobka iyo inaad buuxisid oo aad noqotid qof tirsan oo la yaqaano waddanka wax ka degan. Midda labaad waxaa laga yaabaa dadka qaarkood Soomaalida waxaa iska jira inay arrimaha dawladda ama dawladda aad uga baqaan oo aysan aaminsanayn ama isleeyihiin macluumaad aysan rabin dawladda inay la wadaagaan in saas loo gaarsiiyo. Laakiin macluumaadka ABS ma aha mid dawladda ama hadday noqoto hay'adaha kala duwan ay ogaanayaan shaqsiyan oo qof ahaan ay intay u baartaan u ogaanayaan maaha. Waxaa la rabaa shacbi weynaha guud in maap ahaan la fiiriyo meelahay degan yihiin, dhaqaalahooda, sida ay u degan yihiin, xanuunadooda, waxbarashadooda iyo kulli guud ahaan waa macluumaad marka
dowladdu ay adeegyadaasi ku salaynayso ee maaha mid la leeyahay waxaan ogaanaynaa qofka ama been ka sheega ama run sheega ama wax kale dowladda ka qariya ama macluumaad kale qarsanaya looguma talagelin. marka maaha inaad ka shakidid. haddaba sanadihii hore waxaa dadka loo soo diri jiray foomam waraaqa ah oo ay tahay inaad inta buuxisid albaabka hortiisa dhigtid qof kuu yimaado uu kaa qaado. laakiin sanadkan dadka intooda badan waxaa laga rabaa inay ku buuxiyaan dhanka online-ka. bishii July wixii ka dambeeyay dadka waxaa loo soo dirayay warqad ay ku qoran yihiin macluumaad ama passwordyo ama username waxa la yiraahdo qofka gurigaas degan u gaara oo website-ka markaasi aad ku geli kartid si aad macluumaadkaasi online-ka ugu buuxisid. haddii aad garan weydo sida loo buuxiyo dabcan qof u weydii, laakiin waa muhiim habeenkaasi inaad buuxisaan tirakoobka si aad u noqoto qof tirsan oo bulshada halkaasi degan ka mid ah, macluumaadkiisuna dowladdu ay guud ahaan og tahay. haddii matalan qof marti uu ku yahay waad ku qoraysaa habeenkaas qofku meeshu joogo baa la xisaabinayaa. marka haddii aad 4 ku deganeedeen guriga laakiin aad 5 baad ku qoraysaa, caadiyan dadkaas xaggee deganayaan hadii lagu yiraahdo dabcan gurigaad ku qoraysaa. marka waa muhiim, waa wacyigelin. arrintaasi ayaanu u duubnay maanta inaad la socotaan. waa habeenka Talaadada ee bishan August ay tahay 13 waa tirakoobkii guud ee dalkan Australia 5 sanaba mar la qabto. dadka aan ogeyn u sheega, cidii caawimaad u baahan hala caawiyo, sidaasna ula socda. barnaamijyo kuwan lamida ayaanu insha Allah inii soo gudbin doonaa. marka nagala socda bartayada ama channelka YouTube-ka ee Hon Digital TV iyo sidoo kale Facebook-giisa oo Hon Digital TV ah. halkaas ayaad macluumaad badan oo kala duwan oo muhiim u ah bulshada iyo wararka caalamka insha Allah aad kala socon doontaan. waa anigoo ah Xasan Jaamac oo inala intaas iyo nabadgelyo.